safiirka Somaliland mudane Mustafa Yusuf Ismaaciil ayaa kulan baran la qaatay jaaliyadda Somaliland ee magaalada Maynis masaajidda ku yaala oo lagu ururinayay dhaqaalihii laga qayb qaadan lahaa suuqa waaheen ee ku gubtay magaalada Hargeysa. Ugu horreyn munaasabadda waxaa hadalka jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta safiirka ku soo dhaweeyay magaalada Maynis waxaana hadaladoodii ka mid ahaa aad bay muhiim u tahay runtii guud ahaan ka jarmal ahaan inagoo ka duulayna runtii dardaarankii iyo hadaladii madaxweynaha iyo in la mideeyo mar walba tabarucaadkan iyo arrimahan aynu gacanta ku hayno inaynu midayno runtii oo aynu gudiyada labada ah oo kala sareeya ee ka dhisan insha Allah Hargeysa laga dhiso heer qaran iyo heer degmo inaynu inagoo midaysan hadaynu nahay reer Germany 16 gobol ku kooban yahay jaaridaha ka jira oo arintan ku hawlan inay runtii iyaguna cududooda mideeyaan contribution-kan iyo waxaan ay ururinayaan ay meel isugu keenaan runtiina si midaysan hadaynu reer Germany nahay aynu u gudbino insha Allah resultiga aynu rajeynayno khayrka oo inaka soo baxa hadii la haydmo arintaasna waxaan ambassadorka ka sugeynaa hadii la haydmo inagoo ixtiraamayna nidaamka iyo kala damaynta iyo maaragtay protocolka ilaalinayna waxaynu safiirka iyo gudoomiyaha jaaliyadda ka sugeynaa insha Allah inay waqtigii iyo goobtii ay arintan midayn lahayn oo meel isugu keen lahayn inay noo sheegaan hadaynu nahay reer Germany dadka arintan ku hawlan 16 gobol meel kasta ay joogaan marka ambassador waad mahadsan tahay waxaan si gaar ah aan ugu sii mahad celinayaa gudida labada masjid Wiesbaden iyo Mainz oo ah laba mataana ah runtii Cabdiqani iyo wasiir hore Maxamed Cabdi Kuus iyo gudida kale la shaqeynaysiiba waxaan ugu mahad celinaa sida wanaagsan ay hawsha gurmadka dhanka kalena safiirka ayaa sheegay in dadaal lagu jiraan sidii magaalooyinka oo dhan loo mideyn lahaa isla markaana meel lacagta la iskugu geyn lahaa si ay u noqoto buuli lacag waxtar ah oo ka baxda dalkan Germany isagoo ka hadlayay waxa uu yiri dadka inta aan la socon Jarmalka waa 16 gobol waxaan taaganahay maanta laba magaalood oo isku naban oo laba gobol u kala caasimada ah labadii jaaliyadii Somaliland iyo jaaliyadda Soomaaliyeed oo masaajidkaas isugu yimid oo maalintay dhibaato ka dhalato iskaashada maalintay farxadii dhashana Soomaalinimo iyo Muslimnimo isku kaashada ayaan maanta aad iyo aad ugu faraxsan inaan la joogo sababtaan u nimidno waxa weeyaan inaanu bal iswareysano isu ducayno oo wada tashano oo wixii ay iyaguna qabteen maadaama ay ka soo jeedaan area ama mantaqad ama laba dawlad goboleed oo aad u qaniya oo aad oo Soomaaliduna ay dad dhisan yihiin oo runtii masaajidada ku xidhan inaan baltaladooda qaadano oo sideen halka uga sii gudbi lahayna aanu ka wada tashano waxaan rajaynaynaa dhawaan inaynu go'aan ka gaarno inagoo wada tashanayna markaan wada tashigana la sii qaadano gobolada inoo hadhsan inagoo wada socona wasiir waxaan rajaynayaa inaynu week gan gudihiisa intaanu dhammaan aynu road map ama qorshe aynu soo bandhigno aynu doonayno qaadhaanka loo ururinayo gudida dadkii ku tabaaleysnaa ee wax ka soo gaareen waaheen Saciid Cabdilaahi Xasan wararka TV-ga qaranka dalka Germany.